furayna qalabkan ay noo keentay wasaaradda horumarinta biyaha iyo hay'adda IOM oo runtii aynu ugu mahadnaqayno qalabkan faraxalka ah ee ayna soo gaarsiiyeen saaka inagoo ah degmadii Bilugubadle ee gobolka Hawd waxaynu ka gudoomaynaa qalabkii faraxalka oo ah 10 xabo iyo 150 kartoon oo shaamboogi lagu farxalanaya 40 kartoon oo saabuntii gacmaha lagu meeyay waxaan aad iyo aad u jecelahay in wax kasta oo la keenaan ugu mahadnaqno cid kasta oo keenta oo deegaanka u keenta oo kaga hortagaysa cudurkan faafaya ee coronavirus ama COVID-19 runtii wasaaradda horumarinta biyo iyo leaderskeedu waxay gobolada dalka gaarsiiyeen qalab aad iyo aad u fara badan oo laga qayb qaadanayo sidii lagaga hortagi lahaa Allahumma salli ala Muhammad cudurkan faafaya aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa markii saayin hay'addan IOM iyo wasaaradda horumarinta biyaha oo isuduwaheedii halkan fadhiyo boqolkiiba waxaan maanta ugu mahadnaqaynaa qalabkeena soo gaarsiiyeen runtii waxaanu leenahay oo idinka gudoonay haddaanu nahay ama aan ahay anigu xoghayd degmada kusiimaha maayarka ee gobolka Hawd martida halkan fadhida madaxda halkan fadhida isuduwayaasha iyo dhammaan ganacsatada waxaan uga mahadnaqayaa sida fiican ee sharafta leh ee ay degmada iyo maamulkeeda isu garab taagaan ee wixii wacyigelin had iyo jeer ay u fuliyaan aad iyo aad baan ugu mahadsanyiin qalabkan waa 10 xabo oo faraxala 10 xabo waxaanu dhignay goobihii ganacsatada waxaanu dhignay goobihii xadka laga soo galayay waxaanu dhignay goobihii kale ee Allahumma salli ala Muhammad hay'adda dawladda waxaanu aad iyo aad wasaaradda biyaha iyo IOM baan leeyahay runtii idinkoo intan ku mahadsan waxaad aad loogu soo dadaashaan agabkan waan ku filayn guud ahaan degmada iyo gobolkaba in la soo kordhiyo oo runtii laga qayb qaato cudurkan COVID-19 aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin saako ay urdaa furnayna hawshu way inoo furan tahay waana mahadsantihiin